محمد وهذا مركز لقى تجو شقوين كاكلات سوق قبطي سوماليا معلنات كجسوا شقيسي إما كان وضن كان دنمارك أيام مددر معلن كهيد ولينا كتهاي مركز كورنتو نظام كي وحبر الشدة سوماليا إياه كمان هل كان عرورته حلقوا برا محيس كجمدين محيس كوكل دوين horta meelaha ay iskaga mid way jirtaan meelo badan oo kala duwan yihiin horta marka ugu horeysa waxay ku kala duwan yihiin wadamadan sida wax loo dhagaa caruurta waxa la child is the center ilmaha dhexda ah waxa laga wadaa macallinku inaanu hankii xulba ogaa caruurta dood baad gelinaysaa waxaad siinaysaa maadooyinka maxay ahayd creative-ka ama hal abuurka ah adigii caruurta wada shaqeynaysan ma tihid macallinkii buuxay sii deynaya wax walba وتوا child in the center ilmaha dhexda ah waxay kala duwan yihiin wadankani luqadiisu waa luqad adag marka xisaabtooduna iyo luqadba waa heer sare ilmaha dhigta wadankan shanaadka wuxuu u dhigmayaa fasaladani qof dhigtay fasalka dugsiga koobaad dugsiga sare fasalkiisa koobaad way sareysaa waxbarashadu way sareysaa taa inaga wali la leeyahay macallinka xulba og wadamadan kama shaqayso macallinku waxba ma oga ardayda ayuu ka soo saaraya wixii og yihiin halka baynu aad iyo aad ugu kala duwanahay marka waxaad leedahay casharkii macallinku intuu isu soo taagan sabuurada oo ardayda ku akhriyay ma jirtee ardayduna way ka qayb qaadanayaan macallinkii isu soo taagay sabuurada ee maanta oo dhan keligii hadlayay ma jiro waxa la siinayaa ciyalka waxa la siinayaa si maskaxdooda loo koriyo for example haddii laga sheekeynayo xisaab ilmi markiiba waxa la siinaya waxa la leeyahay waxaad soo cabirtaa fasalku siduu yahay waxaad cabirtaa kuraasta waxaad cabirtaa fasalka halkiisan banaanka loo saaraya waxa la leeyahay yani waxa ku badan xisaabtooda practical ama ilmuhu oo wixii isagu niyadiisa creative-kii ilmuhu niyadiisa wixii ka keenayay ma aha macallinka la lahaa isaga xalba macallinku ma oga maxamed umar maadaama hadaba shaqadan macallinimada aad nidaamka hore ku soo bilowday Soomaaliya markii halkan macallinka aad ka noqotay maxaa kugu adkaa waxa horta markii ugu horeysay ee tii ugu agteed waxa weeye ardaydeena habkeen ula dhaqmi jiray ee adkayd ee adigu aad odhanaysay aamus ha hadlin waxba ha sheegin waxaas ma jiraan galaaska markaad ku jirto si yar caadi ah la wada hadlayaa ilmuhu markiisuu hadlayaa markaagaad hadlaysaa yani maaha macallinku inay carruurtu arkaan cadow hortaagan oo cadaadinaya waxay u arkayaan ardaydu macallinka qof ay ra'yi isweydaarsanayaan sidaasay waxbarashada ku soconaysaa marka taasina way adag tahay aniga markaan halkan imi waxaan tegay koorsyo badan hal sano jaamacadan dib u galay si nidaamkooda ula dhigto waliba inaga wadankan waxa la bartaa wax la yiraahdo pedagoog waxa weeye waa dhinacii habkii ilmaha loola dhaqmayay inaga jaamacadaheennii gebigeedu la falo waxa la nasin jiray xiisada ma laba xiisood halkan sanad dhan baa lagu siinayaa habkaad ilmahan ula dhaqmi lahayd ilmi ma taaban kartid ma riixi kartid xaquuq uu leeyahay waa qofka shakhsiga ku hor fadhiya adigoo kala ah waa inaad barataa pedagoog marka hal sanad baan soo baranayay sida habka pedagooga ama carruurta wax loo dhigo waa arinta maxamed oo taan doonay inaan ku weydiiyo tii wadankii macallinka ardaygu uu arkayay sida aad sheegtay qofka awood weyn oo dhibaato u geysan kara ama garaaci kara ama laga baqdo nidaamkaasi maxaa mudarree uu lahaa in ardaydu ay si wanaagsan u bartaan wuxuu mudarro u lahaa ilmihii markuu kuu arko inaad dictator tahay oo adigu meeshii maamulayso wuu baqanayaa oo kuma dhaco inuu ku weydiin karo su'aashii saxa ahayd kan laakiin kuu arkay inaad saaxiibtihiin ee wax wada wadaan ilmihii su'aalo xitaa adigu inaad soo baadho u baahan ayuu bushku ku gelinayaa dabeedna waa inaad soo diyaargaroodo adigoo macallinaan diyaargaraysan waxma dhigi karo waa inaad well prepared waa inaad adoo diyaarsan ee ilmaha wuxuu dhigi kartaa gartay laakiin waalidiinta qaarkood oo aanu sheekaysanay waxay maxamed oo qabaan oo aan hubaa adiga qudhaaduna inaad doodaa maqashay in ardaydu ay xadhka goosanayaan oo haddii macallinka aanay ka dambayn ama ilaa xad aanay ka baqaninba taasi adiga ma kuu muuqataa taa waxaan kaaga jawaabayaa kalaaska dhaaniska markaad gasho waxaa la samaynayaa sharci kalaaska ah ardaydaa la weydiinayaa
waxa la leeyahay maxaynu ka dhignaa sharciga kalaaska halkaa waxaa lagu qorayaa in la aamusnaado in gacanta la taagan marka wax la weydiinayo in qof kasta istikadiisa sito in yacni waxaa jira classical kalaaska sharci leh ardayga ay iyagu samaysteen ardayda la weydiinaya sharciga halkaas inta la qoro la waaweynayo iyo halkaa ku qoran yahay sharciga halkaa ku qoran qofkii jabiya ciqaab baa la siinaya ciqaabta la siinaya maaha in la dhirbaaxay in la laadaya toona taa lamaba ogolo soo waalidkiiba ma taaban kartid waalidkiibaa lala hadlaya waxaa la leeyahay inankaagu noocaasu jabiye waraysi baa loogu yeedhayaa waalidkii baa laga dhaadhicinayaa waalidkii ilmihiisa wuu la hadlayaa marka halkaa waxaa kaga muuqata in wada shaqayn ay jirto waalidka iyo macallimiintu innaga waxaa laga yaabaa weligay intaan isku dhiganayay inaan walaalkaybay soo koriyo weligay inaan odhan maxaad dhigataa iskuulkana aanu imanin xiidhba maba laha waalidka iyo iskuulku iyo macallimiintu halkan waxaa isku xidhan kalaaska waxaa ka samaysan waxa la yidhaaho guddigii waalidka kalaaska dhigta ayaa 5-6 qof ayaa guddiya kuwa ayaa iskuulka maamula xafladaha sameeya mushkilad hadday timaado loogu celiyaa marka iskuulku xidhiidh fiican buu la leeyahay waalidka inaga waxay naga maqnada haba yaraatee waalidku iskuulka yaqaana waxa loo soo dhigaba waalidiinta Soomaalidu marka maxamedow ee wadankan Denmark ku nool nidaamka ma la qabsadeen oo maanta caruurtoodii ma ka warhayaan waa ay la qabseen in kastoo dhibaato badan ka qabsatay oo barihii aan waxbarashada bilaabay marka aan u imaado aan doonayay waalid Soomaaliya in uu waraysi ila galo oo anigii aan macallimid kale aan fadhino waalidka Soomaaliga wuxuu igu oran jiray maxamedow adeega mas'uula su'aali isaga la weydiin aniga leeyahay adeega mas'uula marka way u adkaataa deenu mas'uul kama ihi waxa la rabaa waxaan ilmihiisa la yiri ka hagaaji inuu ka doodo sheego mar waalid Soomaaliga in badan bay dhibaato ku qaadatay casharada inaga waxaan naqaanay waxa la homework ciida ka badan waalid Soomaalidu waxa kuna maxaa ilmaha loo soo siin waayay homework maxaa loo soo siin waayay shaqadii guriga meeshan wadankan Denmark waxa loogu talagalay ilmuhu intuu joogo iskuulka inuu ku dhamaysto wixii uu qaban lahaa marka inta badan waalid Soomaalidu waxay ka hadlaan marka ay shirarka yimaadaan waxay dhahan ilmahayga 10 lama soo siiyo macallinka Danishka wuxuu dhahay 10 anigu aan guriga u soo siiyaa meesha ma yaalee ilmahani wixii baranayay iskuulka ku dhamaystay adigu hadda 10 dheeraada siinayso marka taana waxay ku noqotay in badan ay la qabsadaan waalidka Soomaalidu oo aan meeshii aan ilmiga qasab ahayn inuu dhowr saacadood guriga joogo wax qoro wax soo faygaro maxamedow markaad eegto baahiya ay qabaan caruurta Soomaalida kuwa wadankan yimi iyagoo ama iskuul hore u soo galay ama aan gelin ba halkan ku bilaabay iyo kuwa ku dhashay wadankan Denmark ma kala duwan yihiin misoo isku mid yaaladii berigi hore soo galay ee waalidadii wadankiiba ay yimaadeen waxay ahayd caruur dhaqanka haysta oo dhaqankii Soomaaliya soo bartay oo xagga lagu soo barbaariyay oo haysta dhaqankii Soomaalida caruurtii halkan ku dhalatay waxay qaateen dhaqankii Danishka oo ay la bilaabeen waayo waxa weeye maalintii saacado badan bay joogaan maxay hayday iskuulkii marka waa markii ugu horeysay waxay ilaalinta Soomaaliga bay ilaaween wixii Soomaali la oran jiray af Soomaaliga la oran jiray meesha uu ka baxay ciyaalka imika dhigta fasalka la yiraahdo eberka ama koobaadka dhigta af Soomaali ma yaqaanaan markaad wuxuu dhigayso haddaad isleedahay Soomaali kula hadal wada Danish kula hadashaa mid kale waxay qaateen habkii barbaarinta iskuulka haddii waalidku isagoo isku guriga joogo uu sida dharbaax ama riixo markii biliiska lagu dhufano waxa la leeyahay ma diri kartid waayo waxa laga soo dhaadhiciyay inuu ilmahani xaq leeyahay oo la diri karin oo wax lagu samayn karin therefore dhibaatadu halkaas ay kala haysataa taasi waxay keentay in marka waalid badan lagala qaado caruurtii oo la yiraahdo caruurtaada habkii loogu talagalay lama dhaqan dhibaatadaasi ma ku badan tahay wadankan Denmark adigu waa badan tahay dhibaatada caruurta laga qaadaya waalidka ee la leeyahay habkii loogu talagalay ciyaalka uma barbaarisid way badan tahay aad bay u badan tahay xagga waxbarashada markaad eegto maqaamka ay joogaan maanta caruurta Soomaalida ee Danishka ee halkan ku dhalatay iyo kuwii iyagoo yaryar yimiba maxaad ku tilmaami lahayd maxamedow waxaan ku tilmaamayaa bilowgii hore ma fiicneen caruurta Soomaalidu waxbarashadeedu imika caruurta Soomaalida ee wadanka ku dhalatay ee ku barbatay iskuulada ka baxday waxay gaadheen ilaa heer ay noqdaan looyaro
waxay gaadheen heer ay noqdeen dhaqaalaha ama ekonomiga waxay gaadheen heer fiican bay marayaan siiba waxa aad wuxuu sii bartay oo aad loo ammaanayaa hablaha inamadu way yara cagajiid laakiin nimanka wax la qaybsaday daanishka ee wax walba noqday waxa weeye waa hablaha inamadu yara cagajiid maxamedow maadaama muddo dheer aad caruurta ku dhex jirtay oo dee macallin aad tahay dhibaatadaasi kuma koobna waddankan Denmark oo keliya Soomaalida Yurubka ku nool hablaha moodaa inay ka fadalacadiin ama waxbarashada ay kaga wanaagsan inamadii maxaa ugu wacan bay kula tahay adiga aragtidaada wax ugu wacan horta sideedaba xitaa haddii kuwa daanishka la eego had iyo goor hablaha iyo inamada way ku kala fiican yihiin muxuu ahaa waxbarashada marka Yurub la joogo sababta waxay noqonaysaa inanku uu yara madax taagaya oo xoogaa kibir baa ku yara jira gabadhina waxay u hoggaansamaysaa casharadii iyo shuquladii wixii iskuulka laga dhigayay way u hoggaansamaysaa marka had iyo goorna inanku wuxuu doonayaa wax ka hor yimaada ama kubad buu ciyaaraya ama maxay qaarbo la soo feertamaya hawlihiisa badan waxay samaynaysaa iskuulkeeda iyo casharkeeda waana xagga akhlaaqdana had iyo goor waxa degan oo akhlaaq fiican 100% hablaha waxaan hubaa inaad waddankii marar fara badan booqatay marka aragto nidaamka waxbarashada ee dalkii maxaa ugu weyn in la bedelo u baahan bay kula tahay waxa ugu weyn in la bedelo u baahan waxa weeye waddankii anoo marar badan tagay weli waddankii wax lagu dhigayaa tii ahayd inuu macallinku iyo kaga xulba og وأن نظام كا بحا أو معلمين تنا لبرا حبك بادجوج أما حبك بربارنتا أو علمي أيو أركان علمي إنه شخصية دي هي أو وحون وحلا برا أو علمي وحكوشرا هاي عنك نقولون كيد بقول كديشنير السوق يبي يكسيديني تاسولي ودكني وكتشرتا دباتاسي إلا دباتا أيو كبحنانا عروتين وحبرشيد في عنان مصر تاسان واركا مستقبلك دليرada Soomaalida maanta ama jaamacadaha galaysa ama dugsiyadii ka baxaysa sidaad u aragtaa Maxamed horta waxaan u arkaa caruurta Soomaalida maanta jaamacadaha galaysa ee dugsiyada ka baxaysa haddii ay ka soo wareegto laba generation kale ay soo wareegaan dad Soomaaliya oo Soomaaliya ku xiran aan ahayn bahaba yaraatee halkan ay joogaan bay xidida ku yeesheen kama badhaadhicin kartid ba halkaas aad ka soo jeedaa way lumaysaa Soomaalinimadii dadkaasi integration bay qaadanayaan waxay noqonayaan Danish madow bay noqonayaan marka dhibaatadan maanta aynu ka hadlayno in jiilkii wadankan u soo haajiray iyo caruurtooda ay mararka qaarkood ka hor timaado ama caruurta laftooda way la kulmaan meesha way ka baxaysaa waad leedahay miya dadweynahaas wax la qabayaan ilmaha Denmark ku dhashay horta marka ugu horeysay markuu 18 ka baxo wuxuu ku arkayaa in aydan xirbeed ka dhaxaynba mujtamacaasu dhinaca ka gelaya guri buu degayaa marka way adag tahay in ay isku xidhmaan inuu iskabada waalidkiisa halkan joogay wadankii wuxuu ka yaqaanaa maba jirta absolutely wuxuu noqonayaa ninka madow ee Danishka inan iyo inanba dhaqankooda uu qaadanayaa gabdhuhu masarkii bay dhigayaan saraawil bay qaadanayaan habka waxay qaadanayaan assimilation waxay ku milmayaan gibigooda mujtamaca Danishka sida ummadaha kale oo wadanka bariga soo galay sida markii yahuud oo kale wadanka bariga soo gashay laakiin hadda kama garan kartid in yahuudi haduu kula hadlayo inuu yahuudi yahay iyo inuu markiisii hore Danish qaatay assimilation fiican buu qaatay saasoo kale inuu soo socota anigu waxaan qabaa waalidku inay ku dadaalaan oo caruurtooda almeena sanadkii mar ama laba jeer wadankii geeyaan oo soo tusaan wadankii baa loo baahan yahay si ugu hayaan Soomaalinimadii waxyaabaha kale Maxamedow sanadahan dambe la tilmaamo waxa kamida waalidkan hadba wadan caruurta u rara laga yaabo inay Masar geeyaan oo ay Kenya geeyaan ama wadamo kale ay geeyaan oo deedna ilmihii waxbarashadii xaqana uu ka dhaco tii xaqana uu la qabsan waayo markuu soo noqdana uu meel dhax ku dhaco dhibaatadaasi intee bay laagtay bay kula tahay dhibaatada caruurta loo qaadayo ama Soomaaliya ama Qaahira ama wadamo kale loo qaadayo ilmihii ama Kenya ilmihii isagoo yar baa la qaadayaa wuu maqnaanayaa isagoo dugsi sare ku dhameystay buu imanayaa Denmark ilmahaasi markuu Denmark yimaado isagoo 17 jira meel uu la qabsan kara ma jiro waa wuu lumay
gebigiisuba uu baaba'ayba halkaasuu istaqas ku noqonaya marka dhibaato aad u weyn baa jirto dadka marka hore ay leeyihiin ilmahayga waxaan soo barayaa dhaqanka Soomaalida ilmahayga waxaan soo barayaa Carabiga waxaan soo barayaa laakiin markuu halkan yimaado waa too late waa meel uu la qabsada ma helayo waxaa laga yaabaa ilmaha ka soo baxay dugsiga sare ee Qaahira ama Kenya ka soo baxay halkan markuu yimaado shaqo waayo inuu ku shaqeeyo baaldiga la boodo oo shaqada safaynta meelaha la safeeyo qualified ma hum muu sii soconne marka dhibaataas way dhibaato weyn oo haysata caruurteena dib loo dhaqan celinayo ee in badan wadanka lagu soo haynayo marka waalidiinta damacaasi uu ku jiro ama sidaa doonaya waad kala talin lahayd imka miya waxaan kala talin lahaa ilmahaagu hadduu Denmark joogo ha celinin ma ilmahaaga ma ku daysa Soomaaliya oo tiri Soomaaliya weligiiba hay joogo mise soo celinayso Denmark keenaysi war ilmahaaga haddaad Soomaaliya u deynayso intaad ka hayso halkaa uu kugu soo barbarayo weynaanayo ku guursano shaqo helayo oreen laakiin intaad ilmahaaga ka hayso isagoo weyn Denmark ha ku soo celinin mustaqbalkiisa waad baabi'isay luqad ma yaqaano dhaqan Danish ma yaqaano cid aqbalaysa ma jirto nin weyn oo isteeto jiro wax allaalay wuxuu qabsadaa aan jirin inta badan ee nooca ee soo noqda waxay noqdaan ama bas bay ka hayaan ama taxi bay ka hayaan waxba kama qaataan waxbarashada kale caadiga wadanka because luqadii baa xidhaysa luqad ma yaqaanaan xitaa hadiiba sida la ii sheegay maxamed oo ay siraan waxbarashadii ku noqda waxa khasab ku noqonaysa waxbarashada dadka waaweyn galaan Soomaa hadday rabaan waxbarashada waa in uu ilmahaasi soo barta isagoo luqad ku hadla mooyaan luqadda barta mooyaan waxbarashada barta mooyaan ma geli karo haba yaraatee waxbarashada caadiga kama sii wadi karo محمد aad iyo aad baad u mahadsantahay